waxaan marti idinkaga ahay xaqiiqatan waxa weeye dalkan dad kansar ku ahaa ku jira waxa weeye gabadha Soomaaliyeed waxa laga yaabaa intii badan ay istiraadaan warniyow gabadha maxaa ninkan wax uga sheegaya gabadhan wasaaradii dhalinyarada isboortiga ayay wasiiradu looga dhigay ma u noqon kartaa qof qabiilkii sheegaya oo dadkii kala gooynaya oo ummadan dhibka aragteen soo maray qabyaalad dadkii ku dhaxaynaya ma u noqon kartaa asagana beesha digil midfle sab kalaamkiisana oo dheelaayaha ka yimid AK47 iyo dhashiike laguma noqon karo ma u noqon kartaa gabadha Soomaaliyeed iska dhaaf inay dad dhaxdi iyo rag wax ka tiraadeen run ahaantii waxa weeye hadii ayada oo maraysa wado laba qof laba nin ay fiiriso inta socodka lumay ku fijirtay qadiijo dalka waxay ku haysataa isbaaro qaylo iyo qoob iyo asinaration iyo dhibaato Itoobiyaanku u fuliyaan ayay ku wadaa waxaanu u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed in laga xoreeyo waxaan u baaqayaa walaalaha ITM waxaan u baaqayaa midnimo qaran waxaan u baaqayaa ururka signal waxaan u baaqayaa waxaan u baaqayaa inta Soomaalinimadu dabqato maanta waxa dalka iyo dadka ay ka wadaa waxa weeye wax u qalmo ma aha ma noqon karo legendkii Soomaaliyeed mana u qalmo in uu waxa weeye NGO uu noqdo waa aragnaa mana u aamusayno xaqiiqatan waa kalimatul xaq urwid bil baadil uma qalmo abdi bila abdi in qod basira lagu soo dhaweeyo wajiraaye marka wajiraaye marka wajiraaye way ruuxu shigbaay